marka hore waa mahadsantihiin mar labaadka waxa weeyaan waddanku maanta guud ahaan wuxuu marayaa xaalad aad iyo aad u xun xaaladaas oo ah xaalad siyaasadeed iyo xaalad dhaqaale iyo haddii allaba ku rooyay mid nabadgelyintaba waxaad mooddaa inay wax ka sii dhacayaan un xisbigii kulmiye ahaa iyo dawladdii taasina waxaad mooddaa in ay kolley dhibaato weyn ku noqon doonto ummadda ku nool somalilan guud ahaanba haddii aan hoos usii dhaadhaco waxa weeyaan xisbigaasi kulmiye oo wakhtigii uu ololaha ku jiray si weyn dadka u hoyikiciyey oo u sheegay wax aanu ku laba qaban karin in halkaas xullada miidda laga cuni doono waa lagu hungoobay dadweynuhuna aad iyo aad bay ugu hungoobeen waa laga haddii allaba ku rooya moral jabsanya dhammaantood sidaas darteed baa aad mooddaa in wacyigu aad iyo aad imika uu xun yahay waan gartay waxaad ka mid tahay musharaxiinta u tartamaysa xisbiga mucaaradka ee waddani bal ka waran loolanka adag ee ka dhex taagan xisbigiina musharaxiinta tirada badan leed adigu aad ka mid tahay loolanka adag ee ku-xigeenka iyo madaxweynahaba loogu jiro bal ka waran loolankaasi aragticinkaybaad ka qabtaa anugu kolley ma qabo in loolan adagoo sidaas uu dhex taagan yahay murashaxiinta dhowr baanu ku nahay ku-xigeennada gudoomiyaha qudhiisa waan maqlaaya mid iyo laba kaloo iyaguna doonaya inay tartanka la galaan xisbigu waa xisbi dimuqraadiya weeyaan sharci baa qoran sharci baa yaalla sharcigaas maana kolley lagu kala bixi doonaa marka la qabto shirweynaha kaasoo golaha dhexe ay isku iman doonaan dabeedna gacanta ay u taagi doonaan labada murashax ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa marka wax dhibaato kolley taagan ma arkayo way dhacdaa way jirtaa ragga qaarina iyagu siisiiyeen oo laga yaabo hadhow inay dhib weyn ku dhacdo marka ay siisiiyeen ay waayaan waa laga yaaba inay dhibaato ku kulanto laakiin waxaan u arkayaa anuu tartan xola oo xalaala oo aan wax dhibaatay ku jirin waxaa nagu maqaalaa beryahan ay bulshada boorama isla dhex maraysaa run ahaantii siyaasi qolombia oo ka mid ah musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga mucaaradka ee waddani waxaa la sheegaa oo la hadal hayaa bulshadu in maxamed cali ama axmed muumin seed iyo cabdirashiid xasan mataan oo ku soo socda xisbiga mucaaradka ee waddani midkood aad uga tanaasushay hankaagii madaxweyne ku-xigeen sideed u aragtaa hadalhayntaa iyo waxyaabahaas bulshadu ay beryahan dambe isla dhex marayaan kolley anu man maqal mana jirto warkaasi saliya baatoona ma laha waxa weeyaan murashaxiintaan ka mid ahay wixii soo kordhayana diyaar baanu nahay inay yimaadaan haddii 10 gaadhi madda 20 gaadhi nin walba nasiibkiisu qaadaya meeshana waa tartan xora oo xalaala cid alle cid aan uga tanaasulana ma jirto sidaan ku sheegay waa laga yaabaa ragga qaarina waxaa suuqa soo gashadaan iyagu anaa la beeneeyey iyo anaa la daynaya iyo anaa waxa weeyaan kalsooni baanay qabin marka hore weyn waana isku qabin iyagu waxaan leeyahay isku kalsoonaada nin walba tartanka wixii aad helaysaa kalsooniduna waxa weeyaan waxa ka mid tahay nolosha qofka bini'aadamka sida waliba waxa jirta qolobi adiga daayir 15 siyaasiyiinta ka soo jeeda imika in la leeyahay xasamataan bay soo wadaan ay u tanaasulaya kuwa waliba gaar ahaan beeshiina arrinta maxaa ka jirta annagu waxa weeyaan cid alle ciidan u tanaasuleyna ma jirto tartanka sidiisa aan ugu galaynaa nin xisbigiisiiba beeliyay ana xisbiga ku soo dhaweedana waxaan u malanayaa arrintaasi arrin jirta inaan ahayn hadduu isagu siiyana waa halkiisa laakiin cid allaale ciidan u tanaasuleyna iyo cid aan u ballan qaadnay iyo cid aan leenahay kaale midna ma jirto tartanka xagga horaan kaga jiraa safka horaan ku jiraa ninka sii banaystanaya doonaya inuu sii banaystaan waa halkiisa laakiin waxaan ogahay in tartan xoolo xalaal uu dhici doono golaha dhexe marka shirka la isugu yimaado nin walba waxa halka keen kulka maxaad ugu baaqaysaa bulshada iyo taageerayaashaada adigoo fursadan ka faa'iideysan bulshada waxaan ugu baaqayaa waxa weeyaan oo aan leeyahay markii hore waad ogeedeen sidii aad u ogeedeen baan imkan u joogaa waxaanan ka mid ahay tartamayaasha u tartamaya ku-xigeenada xisbigaasi wadan iyo mucaaradka gaar ahaan gobolka awdal ka soo jeeda waxa weeyaan tartanku ha adkaado hadduu doono dhowr baanu ku nahay laakiin weli waxaan ahay ragga xagga hore ka ciyaaraya kubadda ee forwardka mana aan tanaasulin been baa la sheegaya rag baa waxaa suuqa soo gelinaya waxba kama jiraan arrintu halkeedii